halkan aan ku suganahay waa suuqa Waaheen waxa ku habsaday dab geystay khasaare hantiyeed oo baaxad leh wali waxa lagu guda jiraa samata bixinta hantida halkan ku baabaaday iyo dabka wali ka socda ciidamada dabdamiska iyo ciidamada qaranka wali waxay ku guda jiraan sidii ay u baqtiin lahaayeen dabkan xagan agteeda waxa ku sugan booyad waxay baqtiinaysaa wali goobaha uu dabku ka kacayo suuqani mu ahayn suuq leeyahay shacab kaliyaati wuxuu ahaa suuqa caasimadda Soomaaliland waa halka kaliyaati ay magaalada Hargeysa ku soo hiranaysay waxa qabsaday dab baaxadeeda loo khasaare hantiyeed geystay saacadu waxay ku sii siqaysaa 24 saac oo isku wareeg oo dabku socday gabi ahaanba muuqaaladan idin muuqda waxay idin muujinayaan khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaasi qabsaday habeennimadii xalay ahaa suuqa Waaheen wali waxaanu ku guda jirnaa markii ugu dambeeyay ee aanu ku soo gudbinayno khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay suuqa Waaheen telefishinka Cable TV waqti xaadirkan ilaa saaka wuxuu diyaar u ahaa inuu bulshadiisa u soo gudbiyo khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay bartan goobtan aan ku suganahay waa goobaha ugu saameynta badan leh oo haleelay dab wali waxa ka socda qiiq sidoo kale cagafyadu waxay ku hawlan yihiin in ay baneeyaan goobaha uu dabkani ka socdo si loo baqtiyo saacadu waxa ay ku sii dhowdahay 6 maqribnimo waa waqtigii uu xalay ka kacay dabku waqtigeedii wadada waxa loo baneynayaa si loo baqtiyo goobahan kala duwan ee uu dabku ka socdo sida wada arkaysaan cagafta ciidamada kala duwan ciidamada dabdamiska iyo dhamaanba shacabka iyo dadkii hantilayaasha ahaa ee uu ka gubtay dabkani uu ka gubay goobahoodii ganacsi ayaa ku sugan meesha waxa xusid mudan habeennimadii xalay ahaa ilaa hadda ciidamada xukuumadda madaxweynaha iyo dhamaanba ummadda reer Soomaaliland in ay tiiraanyada la wadaagayeen dadka oo halkan hantidoodii ku baabaaday sida wada aragtaan wali waxa halkan ka socota hawl adag